ma rumaysanaysaa in muwaadin u dhashay dalka jamhuuriyadda somalilan uu uga soo dhoofo hargeysa si uu imtixaan uga qaado dhalinyarada dhammaysay xirfadaha dhakhtarnimo ee ka soo baxa jaamacadaha dalkan UK? tani waa qisada doctor cabdiqani mulkiilaha city hosbital oo ku yaala magaalada hargeysa. waa muwaadin u dhashay somalilan. waxaan kula kulmay london oo uu xilligan u yimi inuu ka qaaday imtixaanka dhakhtarnimo arday ka soo baxday jaamacadda Oxford. waxaan ka waraystay doctor cabdiqani xirfadda iyo aqoonta sarreysa ee uu ku gaashaaman yahay iyo sida uu halkan ku soo gaadhay. ku soo dhawaada telefishinka qaranka somalilan. doctor cabdiqani cismaan yuusuf ayaa halkani la jooga. doctor aad baan ku soo dhaweynayaa. ayaad u mahadsan tahay Bishaaro. doctor cabdiqani sidaan hore u sheegnay london waxa uu yimi inuu imtixaan ka qaado dhakhaatiirta wadankan ingiriiska qaar ka mid a adigoo hargeysa uga yimi. hadda safarkan waxaad ka soo gashay reading oo had goobtaad imtixaanka ka qaadaysay, bal noo waran. Bishaaro, waxaan ahay xubin ka mid ah xubinta xaruntan aynu joogno Royal College-ka weli qaybta fellowship-ka la yidhaahdo. muddooyinkii u dambeeyeyna ilaa 8 sano u dambeysay waxaa laga doortay inaan ka mid noqdo xubin ka mid ah xubnaha imtixaan qaadidda heer qaran ee wadanka UK oo markaa maaha heer jaamacadeed. markay jaamacadda soo dhameeyaan ee takhasuska galaan ee 4 sano takhasusa qaataan ay xanuunada uurku jirta qaybta koowaad ay dhammaynayaan ayaan ka qaadnaa marka imtixaanka. waxaan ahay runtii Soomaaligii ugu horeeyey ee darajada loo doorto. marka sanadkiiba mar baan Hargeysa ka yimaadaa si inta dhammaynaysa takhasuska uurku jirta aan imtixaanka ka qaadno. sida halkaa ku gaadhay safarku intuu qaatay? Bishaaro waa jidheer. haddaan maanta bilowno waqtiga naga dhici doona adoo soo koobaya bal mid yalla. marka ugu horeysa horta waa inaad jaamacadda ka soo baxdo 6 sano jaamacadda dhakhtarnimada dhigato. kadib waxaad samaynaysaa takhasuskii baad gelaysaa. marka waxaan ugu doortay takhasuska ugu dheer adduunka oo ah qaybta xanuunada uurku jirta gaar ahaan beerka iyo caloosha. marka 9 sano buu ahaa takhasuskaasi. 9 sano markaan dhameeyey weliba aan 1 sano dheeraadan ku sii daray oo la yiraahdo advanced endoscopy, baaritaano u gaara uurku jirta. kadib waxaad noqonaysaa specialist ama waxa la yiraahdo consultant. markaad muddo takhasus baad noqonaysaa. muddo markaad ahaato waxaad bilaabaysaa tababarka. waxaad ka bilaabaysaa isbitaalka dhexdiisa, heer gobol, heer magaalo. marka dambe aad saa u socoto ay lagu arko inaad tababarka ku fiican tahay baa lagu dooran karaa inaad noqoto national examiner, imtixaan qaade xanuunada uurku jirta. saasaan halkaa u soo maray. ogaalkeenna imika waa Soomaaligii ugu horeeyey Hargeysa oo aad joogtid isbitaal baad ka furtay City Hospital sidaad sheegtay uurku jirtaad ku takhasustay. ka waran wadankii waxa la isweydiinayaa qof haddaba aqoonta intaa leeg leh oo London isagii imtixaan ku qaadaya oo waxbarashada intaa leeg ka soo baxay, halkan muxuu isbitaal ama uga furi waaya ama uu qayb uga noqon waayo wadankii u celiyay? su'aal fiican. weli waan ka mid ahay systemka UK. ha yeeshee anu mar walba way qoontaysnaad maalin ay noqotaba inaan wadankii ku noqdo. waxaa soo dedejiyay arrinta hooyaday baa xanuunsatay, allah yarxamaha, hadda dhowaan Hargeysa ku geeriyootay. laakiin 5 sano u dambeysay aan Hargeysa ku xanaanaynayno wax weyn noo ahayd. taasi waxay keentay in badan oo family-gayga ka mid ah weligood Somaliland ku soo laaban 30 sano iyo 30 sano inay soo wada noqdaan. tii markaan arkay waxaa ii gudboonaatay war halkeen raba mustaqbalkayga maadaama UK aan ka gaaray darajadii ugu sarreysay, maadaama UK aan ka gaaray heer anigii aan tababar bixinayo oon imtixaankii qaadayo, meel iiga sii dambeysa oon sii gaari karaa may jirin halkan. darajadii ugu sarreysay dalkaagii bay noqotay. waxay noqotay halkeen rabaa inaan joogo. kow waa shaqo badan layga soo tuuray Carabta, Khaliijka, Imaaraadka, Sacuudiga, meel kasta waa laga soo dalbaday. laakiin waxa aniga mar walba iga go'oneed haddaan qurbe ka tegayo inaan qurbe kala tegin inaan wadankii hooyo u laabto. alxamdulillah kamana shalaynin wax weyn baa iga kordhay. haddaan dib kuu celiyo safarkaagu halkuu ka soo bilaabmay bal iyadoo kooban halkaad ku dhalatay, waxbarashadaadu halkeebay ahayd ilaa iyo dadna aad ina keeni doonto Royal jidheer weeye. dhalashadayda Hargeysa ka bilaabantay iskuulkii Sheekh Bashiir oo haddaan deris la ahay ayaan waxbarashada bilowgii hore ka dhigtay. anuu halkaa dhigtay dagaalkii 88 igu dhacay. kadibna de qurbaha waatii loo soo qaxay. horta Sweden baan ka soo bilaabay. Sweden baan muddo soo joogay. kadibna UK baan u soo wareegay oo halkan aan ka sii sameeyay dhakhtarnimadeeda takhasuskeedii reer ku yeeshay ilaa iyo de hadda aan ka soo gaaray meeshan maanta aynu fadhino. maxaa kuu qorshaysan marka laga yimaado inaad isbitaal wadankaagii ka furtay
maxaad kale isleedahay dadkaaga wad u qaban kartaa aqoontaada waad kaga celin kartaa bashaar aad baad umahadsan su'aal aad iyo fiican oon mar walba isweydiiyo hadda sanadadii koowaad waxaan ku jiray isbitaalka inaan lugaha u dhigno alxamdulilah waxaan noqonay isbitaalka ugu weyn somaliland ee xanuunada uur ku jirta oo looga yimaado geeska africa meelo fara badan actually city hospital oo kasoo horjeeda beerta xorriyadda magaalada hargeysa maadaama isbitaalka hadda alxamdulilah si fiican uu fadhiistay aanu noqonay meel adoo raalli ma dhakhaatiir kale kaala hawlgasho dhowr dhakhaatiir baa ka hawlgala maadaama aan noqonay meel hadda fadhiisatay inta ku xigtaa waxa weeye saan uga qayb qaadan lahaa jiilka cusub ee dhakhaatiirta somaliland tababarkooga iyo horumarintooda weliba waxaan ku tala jiraa haddii ilaha yidhaahdo sidii aan iskugu xidhi lahaa wadankii waxaa ka taagan dhakhaatiirtii markay ay dhammeeyaan oo si fiican wax u bartaan runtii oo dhakhaatiir badan ayaa ii shaqaysa cisbitaalka dhexdiisa oo hargeysa iyo wadanka dhexdiisa wax ku bartay oo really fiican laakiin waxaa ka dhiman takhasuskii marka waxaan isku dayi doonaa insha allah bal inaan si uun ula xidhiirsiiyo meelaha caalamiga wadahadal baa noo socda royal collegeka haddaan fadhino oo inay dhakhaatiirta hargeysa halkan ay tababar u iman karaan ingiriiska waan bilaabay hadalka qalde wixii iga soo baxana waan la wadaagi doonaa dalkii haddii ilaah yidhaahdo waa inaan ka qayb qaato kobcinta dhakhaatiirta dalka jooga frinta ugu wanaagsan ee sheekadaada laga dhex dhadhansan karaa qof dhallinyaranimo wadankii kaga yimi haddana darajada halkaa leeg dalkiisii waxaan leeyahay dalkii uu yimid ka gaadhay haddana dalkiisii ku laabtay fariin bay diraysaa reer somalilandna waxay u tahay mid ay maanta ku faani karaan adiguse fariintaad u diraysa ayaga maxay tahay anu waxaan u dirayaa oon weliba ku baraarujinayaa dhalinyarta waddanka joogta ee qaybta caafimaadka baratay runtii jaamacado badan oo tayali way jiraan waxaan aan jeclaan lahaa in weliba aan dowladda ugu baaqaya in qorshe loo sameeyo dee dhakhaatiirtii markay dhammeeyaan wada g p ma wada noqon karaan g p waa dhakhtarka guud wixii ka dambeeyey inay dowladdu oo inta hadda bilowda scholarshipyaa qaar badan loo sameeya inay halkaa ka howlgalaan annaguna dadkayga dibadda jooga ama dibadda ka yimiday ee aqoon caafimaad oo xeer sare leh soo barto wadankii looga baahan yahay inaysan iloobin wadankii waxaan u sheegayaa asxaabteyda dibadda joogta ee moodaya wadanku inuu dibudhac ka jiro runtii horumarka aan ka faa'iiday wadanka ayaa ka weyn dhinac kasta xag nololeed xagga qalbiga kuugu degayo xag dhaqaale dhinac kasta waxa ka wanaagsan wadankiisa qofka ka shaqaysta adna wax waad ka qabsan kartaa waxna waad u kordhin kartaa dalkaagii marka dhakhaatiirtaas asxaabteeda dibadaha jooga qabowgan iyo barafka meel ka fiican baa jirta wadankan ingiriiska hadii jeer adigan imika tababarkana siinaya dhakhaatiirta muddana soo dhiganaya ku jiray sidaan dareensannahay soomaalidu kuma badna number intee leeg baa ay ka yihiin dhakhaatiirta cusub sax wey su-aal aad iyo aad u fiican ma markii hore markaan anigu tababarka ku jiray dee 20 sano iyo 15 sano iyo ka hor ah iyo hadda faraq weyn baa u dhexeeya barigaaba dif iyo naadir baa ahaa wax soomaali aad ku aragto isagoo dhakhtarnimo uga shaqaynaya dhakhaatiirta UK in yar baa jirto wadamada kale ka yimid markaa 10 sano u dambeeyey waxaa yimid dhalinyaro halkan ku kortay systemkii la qabsatay actually jaamacadaha wadanka u fiicanna ka soo baxay oo isbitaal kasta oo UK oo magaalooyinka waaweyn ah waad ka soo helaysaa dhalinyaro dhakhaatiir waxaa jira dhalinyaro aan tababaray oo hadda takhasuskii dhameeyey oo takhasusayaalka ah wadankan UK oo Soomaaliya marka way soo galeen wayna soo badanayaan insha Allah adoo Dr. Cabdiqani da'daadu ana aad u weyneyn waxaad hadeerta sheegtay inaad 88kii dhamaadkiisii 88kii aad dalka ka soo tagtay qurba tagtay luqadaada marka la eego iyo da'daada iyo xilligaad wadankii ka soo tagtay runtii waxa u soo baxaysa qofka dadaal fara badan halkee ayay luqadaadu ka wiiqmi weydo af Soomaaligaagu ka wanaagsan inagoo og dadkii dhawaan yimi qurbaha in luqadada Soomaaligu lunto aad iyo aad u wanaagsan horta I think wax kastaaba wuxuu ku dambeeyaa familigii ku soo koriyey marka aniga ama had gaara waxaan u celinayaa aabbe Cismaan oo hadda Hargeysa ila joogo qurbiyan ka kaxeeyey iyo hooyo cadar oo Allah yarxamaha 3 bilood soo geeriyootay mar walba waxay ku dadaalayeen in aanu dhaqankiina hayno wadankiina xasuusnaano iyagoo qurbaha nala jooga waxay naga dalbadeen in aanu qurbaha kaga teginay wadankii nagu celi aan ku celino mar walba maadaama culture-kii wadankii ku xidhnaa aabiye hooyana ay mar walba nagula dadaalayeen I think halkaas ka socotaa taasa qayb ka noqotay marka City Hospital macaynu Hargeysa tago hubaal oo haddii aadan sida nimika Soomaaliga u garanaynin oo bulshadaada ugu dhex jirin macna badan kumay samaysan inaad bulshadaada ugu noqoto nacam dardaarankaaga ugu dambeeya dardaarankii waxa weeye horta wadankii maadaama caafimaadka aad wadankii looga cabanayo bulshadeenu dhibaato badan
horta cabasha ma dhammaato oo waddanka ingiriiskayna joognay horu marnayba caafimaadkiisa waa laga cabanaya wadamada dibadda caafimaadkooga waa laga cabanaya ha yeeshee haddii waddanka intaanan horta u guurin 11 jeer baan tegey saan usoo sahamiyo mar kasta oon tego horumar cusub baan arkayay run ahaantii caafimaadka somaliland 10 sano kadib waxaan filayaa inay noqon doonto meelaha geeska afrika loo yimaada caafimaadka horumar weyn baa ka socda xagga dowladduna waxay siisaa dhaqaale fiican oo isbitaaladii ku kabto isbitaalka dowladda ku kabto xagga privateka ayaa aad u socda oo mar walba waxa la keenaya qalab aad leedahay war afrika miyaa laga helayaa waa wadankii la keenaya marka waxaan rajo weyn baan ka qabaa horumarka caafimaadka waddanka haddaad mahadsantay doctor cabdiqani ayuu kaasi ahaa oo ah dhakhtar reer somalilan oo magaalada hargeysa uga soo duulay inuu wadankan ingiriiska magaalada london uu imtixaan kaga qaado qaar kamida dhakhaatiirta wadankan ingiriiska horumarka la yaab kale waa mid ay dhalinyarada dhammaanba ay samayn karaan waana mid u ah sharaf dhammaanba reer somalilan royal college aan hadda joogno ayuu barnaamijkan idinkaga imanayay dhammaantiin waad mahadsantiin nabadgelyo doctor aad baad mahadsantahay mar kale bilshay aad baad mahadsantahay